maxaa kaa hortaagan inaad guulaysato? waxaa laga yaabaa caqabadahan qaar ka mid ah inay ku haystaan oo ay guushaada kaa hortaagan yihiin. nambar 1 shaki ama cabsi. waxaad ka cabsanaysaa inaad guuldarraysato ama waxaad ka shakisan tahay kartidaada, waxayna keenaysaa inaad waxba isku dayi weydo. haddaba ha cabsan, hana ka shakin awooddaada, waayo wax marka aanad isku dayin adayg u muuqda ayaa markaad isku daydo fudayd soo baxa oo noqda mid ka fudud sidaad moodaysay. nambar 2 dadaal la'aan ama dib u dhigis. waxaad badanaa samaysaa inaad wax qorshayso, balse halkii aad ku dhaqaaqi lahayd aad dib u dhigto oo aad tidhaahdo bil kadib ayaan bilaabayaa, bishii markay soo gaadhana aad bilaabi weydo, sidaana wakhti badani kugu dhaafo. waxaa kale oo jirta inaanad ku dadaalin wixii aad bilowday, kadibna uu horu socod yeelan waayo dadaalkaaga oo liita dartii. nambar 3 go'aan la'aan. waxaa tahay qof aan ku fiicnayn go'aan qaadashada, haddaba go'aan la'aantu waxay kaa hor istaagaysaa inaad tallaabo hore u qaaddo, qorshayaashaaduna noqdaan qaar kuu hirgala. nambar 4 aqoon uma lihi. waxaad isleedahay waxaa bilow, haddana waxay naftu ku leedahay aqoon fiican uma lihid. haddaba iska dhis waxyaabaha lagama maarmaanka u ah shayga aad rabto inaad bilowdo ama shaqada aad rabto inaad codsato, kadibna ku dhaqaaq. nambar 5 dabeecad xumo. waxaad tahay qof isu arka inuu dabeecad xun yahay ama waad dabeecad xun tahay. haddaba baro qaabka nafta loo xakameeyo ama loo dejiyo. markaad dadka kala dhex gasho ee aad la shaqaysana, waxaad noqon doontaa qof waaya arag ah oo wax badan oo aad ka cadhoon jirtay ayaa noqon doona waxyaabo fudud oo aan laga cadhoonin. laakiin sheedda ha ka sii baqan oo hays odhanin haddaan shaqo raadin lahaa markaaba waa layga soo eryayaa oo waan dabeecad xumahay, balse codso shaqada oo ku dhiiro. waa intaasay noqon weydaa sidaad moodaysee. nambar 6 hadaf la'aan. kuma caddo shaqadii aad codsan lahayd ama wixii aad baran lahayd. taasina waa caqabad keenaysa inay kugu adkaato wixii aad qaban lahayd iyo halkii aad ka bilaabi lahayd. haddaba baadhitaan samee, kadibna dooro shayga aad isleedahay waad awooddaa inaad qabato, si fiicanna u baro, kadibna ku dhaqaaq oo ficil u beddel wixii aad baratay ama aad daraasadda iyo baadhitaanka ku samaysay. nambar 7 qorshahaagoo liita. qorshuhu waa waxa kuu sheegaya ama aad ku ogaanayso halkii aad wax ka bilaabi lahayd iyo halkii aad rabtay inaad gaadho, iyo caqabadaha ku soo wajahaya sidii aad uga gudbi lahayd. haddii aanad qorshe lahayn ama qorshahaagu liito, waxaad ku wareeri doontaa kuguna adkaan doontaa halkii aad wax ka bilaabi lahayd iyo qaabkii aad u bilaabi lahayd. nambar 8 nasiib xumo. mararka qaar waxaa laga yaabaa inay kugu yimaadaan dhacdooyin aanad xakamayn karayn oo saamayn ku yeesha guushaada. haddaba ha niyad jabin, hana quusan, ee mar kale dib u bilow si aad u gaadho guushaada. nambar 9 dhaqaale la'aan. dhaqaale la'aantu waxay keenaysaa adoo wax kasta diyaariyey inaad haddana fulin kari weydo dhaqaale la'aan darteed. taasina waxay noqonaysaa inaad qorshayso qaabkii aad dhaqaale u heli lahayd. haddaba qodobada aynu soo sheegnay iyo qodobada la midka ahi waxay ka mid yihiin waxyaabaha guusha kaa hortaagan, loona baahan yahay inaad baadhitaan iyo qorshayn ku samayso sidii aad uga gudbi lahayd. waxaad komentiga nagula wadaagtaa caqabadda aad isleedahay way ku haysataa, kana mid noqo asxaabta ku xidhan Maamuusa Media ee ka faa'iidaysta xogaha aadka u muhiimka ah ee aan soo geliyo barteenna Maamuusa Media.